kasoo magaceeda baasan koritaanka magaalanimo kan bulsho iyo nabadgelyo jigjiga waa magaalo soo martay marxalado kala duwan oo mararka qaar u muuqan jirtay mid ka hadhay kuwii filkeeda ahaa inkastoo ay magaaladan soo mareen maamulo kala duwan oo midba marxalad joogay haddana maanta kama hadlayno ama kama faalloon doono wixii ay ahayd inay mudato caasimadani balse halka ayay maanta joogtaa haddii aad ogeyd magaalo ka hadhsan magaalooyinka dhiggeeda ah ma aha sidii aad taqin 7 sano kadib magaalada jigjiga waxay isku bedeshay si lama filaan ah taasi oo tustay magaalooyinka geeska Afrika in xaalad walba si dhib yar looga gudbi karo kobaca horumarka koritaanka bulsho iyo xasiloonida caasimadeed ee ay jigjiga ku noolaanaysa ayaa timid kadib markii ay majaraha qabatay xukuumadda uu hogaamiye madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar kaas oo garwaaqsaday baahida bulshada deegaanku u qabaan inay helaan caasimad la tartami karta magaalooyinka geeska Afrika si taas loo xaqiijiyana waxa magaalada laga hirgeliyay mashaariic muhiim ah oo sare loogu qaadayo horumarinta adeegyada kaabayaasha dhaqaale waxa la xoojiyay korjoogteynta qiimeynta dabagalka iyo taageero dhan walba leh waxaana laga wada shaqeeyay dhismaha dawladda iyo kan bulsho iyadoo oo mudnaanta la siiyay bilicda iyo nadaafadda caasimadda magaalada jijjiga ee caasimadda waxaan oran karaa waa laga dhabeeyay hadafkii ahaa in la muujiyo caasimad deegaan shacab Soomaali leeyahay oo caasimad u qalanta in laga dhigo bilow fiican baa ka jira madadhowa intii la qabtay in la haddii lagu daro garan kartaan maanta inta hadda la qabtay in haddii lagu daro dhan walba dhanka biyaha dhanka leydhka dhanka jeedka dhanka bulshada dhanka isbitaalada dhanka waxbarashada haddii intaa la qabtay laba laab lagu daro muran kuma jiro in magaalo caasimada oo geeska Afrika magaalooyinka ugu waaweyn ka mid ah inay noqonayso wada la samayn karaa qoynteedii iyo dhaqaalaheedii inta waa la hayaa magaalo koritaankeedu waa fahamka meeqaamka magaalanimo caasimadina maadaama ay barkulan u tahay bulshooyin kala duwan soo muhiim ah in la isla garto in si dhab ah looga helo adeeg kasta oo loo baahan karo si taas loo xaqiijiyo xukuumadda iyo xisbiga barwaaqo ee deegaanka Soomaalida ayaa ugu horreyn xoogga saartay dhismaha dawladda iyo horumarinta adeegyada bulsho waxaa la hirgeliyay mashaariic horumarineed oo ku baxday balaayiin bir taas oo sabab u noqotay in caasimadda deegaanka ay ku soo hirtaan bulsho kala duwan halka qurba joogta iyo daneeyayaasha maalgelineed ay ku dhiiradaan maalgashiga ganacsiyada kala duwan waxaan ku dulgeyn doonaa mashaariicaha horumarineed ee isbeddelkii kadib laga hirgeliyay caasimadda deegaanka Soomaalida dhanka jidadka caafimaadka waxbarashada iyo biyaha dhanka biyaha isbeddelkii kadib waxaa la hirgeliyay mashruuca biyo-gelinta wejiga labaad oo wax weyn ka qabtay biyo-la'aantii ka jirtay magaalada heer daboolka biyahana soo gaarsiiyay 50% iyadoo maalintii magaalada jigjiga ay ka hesho biyo dhan 10,000 oo mitir kuubik walow aysan ku filan biyahaasi shacabka caasimadda waxay xukuumadda deegaanku u hawlgashay sidii magaalada loogu heli lahaa ilbiyood kale waxaana duleedka magaalada jigjiga laga bilaabay qodista 7 ceel oo lagu xoojinayo mashruuci waajin kaas oo wax weyn ku soo kordhin doona biyaha shacabka caasimadda ay hadda helaan isbeddelkii kadib magaalada jigjiga ee caasimadda deegaanka Soomaalida waxaa laga hirgeliyay jidad kala duwan oo ay ka mid yihiin jidka ayardega jidka shaqo jidka burburis ama ducaale jidka seylada xoolaha jidka laamiga taywanka cusub ilaa xaafadda 17aad jidka shaneemadii hore jidka isku xidha wadada dhakhtarka Kaaramarda iyo tan Wajaale dayactirka wadooyinkii hore ee gudaha magaalada iyo jidka jaamacadda jigjiga dhammaan jidadkan ayaa wax weyn ka bedelay isu socodka bulshada ganacsiga maalgashiga iyo adeegyada kala duwan waxayna noqotay magaalada jigjiga mid la tartanta magaalooyinka dhiggeeda ah ee dalka Itoobiya mashruuca horumarinta magaalada jigjiga waa mid ka mid ah mashaariicaha ugu waaweyn ee isbeddelkii kadib laga hirgeliyay caasimadda deegaanka Soomaalida ee jigjiga mashruucan oo isugu jira qurxinta laamiyada kala duwan iyo goobaha nasashada ee magaalada ayaa noqday mid wax weyn ka bedela muuqaalka guud ee caasimadda deegaanka Soomaalida ee jigjiga waxa hadda ka xukuumad ahaan ahmiyad gaar la siiyay mashruuca horumarinta marinada magaalada jigjiga oo ah maxaan ku lahaday mashruuc si cusub iyo si casri ah meeqaamka caasimadnimo macnaha dib loogu sii adkaynayo taasoo waqtigan xaadirka wejiga koobaad 10 kiiloomitir oo maxaan ku lahaday 4 wado oo 4 muhiimka halbowlaha laba mashruuc biyo mareenada oo iyadana daadashan iyo biyaha magaalada caqabad ku hayay hadda waa aragteen macnaha roobabka hadda ay dib natiijadeedii lagu diirsaday iyo baarkiyo ay ka mid yihiin baarkiyada macnaha goobaha tamashlaynta iyo nasashada loogu talagalay dhalinyartuna maxaan ku raadinaa inay ku ciyaaraan ama ku dalxiisaan tahay taasoo kii koobaad oo ah Wilwal Park hadda macnaha gacanta lagu hayo isku geyn markaan ka hadlayo horumarinta magaalooyinka ama caasimadda maalgelinta lagu siiyay loogu hagar baxay waxaan hadda ka hadlaynaa kaliya waa kaabayaashii dhaqaalaha magaalada u baxday dhinaca kale maxaa barbar socda adeegyada arrimaha bulshada iyo maxaan ku raadinay iyo dhinaca dhismayaasha kala duwan xagga dambe kulli ku eegi doonaa arrimahaas oo dhan maalgelinta lagu sameeyay macnaha waa mid caasimadda meeqaamkeeda kor u qaadaya
dhaqaalaha iyo magaranaysa ahmiyad gaarna siinaya. isbeddelka kadib magaalada Jigjiga dhanka caafimaadka waxaa la hirgeliyay mashaariic waaweyn oo muhiim u ah caafimaadka bulshada waxaana ka mid ah cisbitaalka guud ee ciidanka deegaanka Soomaalida qaybta hooyada iyo dhallaanka dhakhtarka Karamardha shaybaarka guud ee deegaanka Soomaalida kobcinta iyo kor u qaadida adeegyada caafimaadka dhakhtarka Karamardha kani waa cisbitaalka Sheekh Xasan Yareed Referral Hospital waa cisbitaalka ugu weyn deegaanka Soomaalida ee lagu daryeelo bukaanada laga soo refergareeyo gobollada deegaanka Soomaalida waxaa dib u habeyn lagu sameeyay adeegyada kala duwan oo la casreeyay marka laga yimaado kor u qaadida adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wadooyinka waxay xukuumadda deegaanka Soomaalida isbeddelkii kadib xoogga saartay sare u qaadida bilicda xafiisyada dawladda iyo goobaha adeegga dadweynaha waxaana la dhisay in ka badan 10 xafiis oo ay ka mid yihiin dhismaha xafiiska golaha xildhibaanada dhismaha xafiiska maaliyadda dhismaha xafiiska ganacsiga dhismaha xafiiska dakhliga dhismaha xafiiska waraabka iyo dooxooyinka dhismaha xafiiska shariicada islaamka dhismaha xafiiska curinta iyo tiknoolajiyadda dhismaha xafiiska xarunta dhexe ee xisbiga barwaaqo la'aantiisa deegaanka Soomaalida dhismaha xafiiska hantidhawrka iyo dhismaha xafiiska maamulka gobolka Faafan